السلام عليكم أصحابتا سو دوادا aad baad u mahadsantihiin sida wacan ee wanaagsan ee aad nala socotaan waxaan jecelnahay inaad like-tana badisaan oo video markaad daawataan like-ta aad saartaan si dad badan oo kale oo u sii gaaro dad badan ay ugu faa'iideystaan sida idinka ugu faa'iideysateen soo dhawaada maanta ciwaanka aan ka hadli doono ee muhiimka waxa waaye sideen ugu hortagnaa infekshanada ku dhaco ragga iyo dumarka sida aan ognahayba infekshanka dumarka iyo ragga ku dhaco waxa weeye waa xanuunka ugu badan ee maanta ay dadka la daala dhacayaan infekshanka waa xanuunka ugu badan ee laga cawdo marka la joogo wadamada soo korayo sida Soomaaliya waxa booqasho ku yimaado xarumaha caafimaadka dad u taag waayay oo ka cabanayo infekshanka soo noqnoqda haddaba infekshanka ayaa wuxuu leeyahay asbaabo fara badan kuwaas oo soo celceliya halkan waxaan ku soo gudbinaynaa talooyin ilaa iyo 14 qodob ah qodobka koowaad cab biyo fara badan cabitaanka biyaha faraha badan leh waxay yareeyaan infekshanka ku dhaco kaadi mareynka haddaba ha yareysanin oo cab biyo badan oo ku filan jirkaaga qodobka labaad qubayska galmada kadib waa inaad badisaa waa inaad ku dadaashaa inaad qabaysato galmada kadib sababtoo ah galmada kadib haddii aadan qabaysanin waxaa imaan karo infekshanada ku dhaco ragga iyo dumarka wayna badan tahay jaaniska inaad qaado infekshanka qodobka saddexaad in la iska dhaqo kaadida iyo saxarada waa muhiim haddaba markii aad gasho suuliga waa inaad iska dhaqdaa kaadida iyo saxarada sababtoo ah waxaa jiri karo dad isticmaalo tiish ama isticmaalo marooyin oo kaliya haddaba waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho biyo si aad isaga dhaqdo kaadida iyo saxarada si aad uga hortagto infekshanada ku dhaco kaadi mareynka iyo xubinta saxarada qodobka afaraad kaadida iyo saxarada ha isku celinin sababtoo ah taladan waxay muhiim u tahay dadka wado baabuurta dadka ku jira shaqooyinka dhadheer dadka subaxdii xafiisyada aado dadka shaqeeyo idil taladan muhiim u tahay saxarada iyo kaadida waxaa habboon inaad isku celin isla marka ay ku qabtaan inaad musqusha tagto soo dangudato marka nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadii qofkiin ay hayso saxara iyo kaadi waa in uu hormariyaa saxarada iyo kaadida salaada horteeda sidoo kale shahwada ha ku kicinin haddii aadan xaas lahayn waa u sii daran tahay oo waxaad u baahan tahay inaad soonto qofku waa in shahwadiisa u ilaaliyaa uusan kicin shahwadiisa haddii ay dhacdo qof xaasla inuu shahwadiisa kacdo oo dareenkiisa ama qof damco waxaa habboon inuu gurigiisa ku laabto soona danguto sababtoo isku celinta shahwada ama isku celinta biyaha waxay keentaa infekshanada waxayna kordhisaa jaaniska qofka inuu ku soo laalaabto infekshanka qodobka lixaad ee talooyinka aan siinayno dadka infekshan ka cawdo waa in aadan seexan galmada kadib adigoonan musqusha galin soo kaadinin waa inaad musqusha gashaa soo kaadisaa ugu yaraan waa inaad soo weysaysataa sida uu tilmaamay xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam qofku waa in ugu yaraan uu weyse qaataa marka waxaa habboon qofka in galmada kadib uusan seexanin musqusha galo badanaa dadku waxay u badan yihiin inay shahwada markay gutaan ka bacdi ay kala dhacaan iska seexdaan waa bariga ay qabaystaan laakiin taas waa qalad arrinkaasna waa arrin keeni karo infekshanka ku dhaco ragga iyo dumarka qodobka toddobaad daawashada iflaanta madow ee galmada lagu jilaayo waxay keentaa sawirada naagaha qaqaawan iyo dadka maarta xumaanta sameeyo dadka faasiqiinta ah dadka daacada Ilaahay ka dheer kulligood waxay keenaan sawiradaas daawashadooda in qofka himadiisii iyo awoodiisa hoos u dhacdo infekshankiisana uu bato qodobka sideedaad in aad biyo iskaga keento gacanta adigoo isticmaalayo gacmahaaga inaad shahwo iska keentane waa iyadana waa arrin kale oo infekshanka ziyaadin karto dadka isticmaalo gacanta waa dadka ugu badan ee infekshanada la daala dhaco qodob kale ay dhibaatada ku qabaan waxa waaye dadka gacanta isticmaalo waa dadka ugu badan ee ka cawdo arrimaha la xiriiro in aysan xaaskoodii awood u lahayn in aysan waxba tari karin oo awoodooda ay yaraatay in ay daawo raadinayaan waxaas oo dhan qodobka sagaalaad waqtiga galmada waa inuu ahaadaa waqti xadidan haddii ay dhacdo in qof uu isticmaalo waxyaabaha shahwada daahiyo kadibna uu dheereeyo galmada waxay keeni doontaa in infekshanka uu ziyaado haddii uu jirayna uu ziyaado haddii uusan jirin in infekshan uu yimaado sababtoo ah galmada waqtiga dheerka ah waxay keenaysaa infekshan
sidoo kale gacmaha oo la iska nadiifiyo xilliga saxarada iyo kaadida la nadiifinayo. Gacantaada markaad saxarada ku dhaqdo waa inaad si wanaagsan u nadiifisaa inta aadan kaadida ku dhaqin. waxaase ka habboon in aad marka hore kaadida dhaqdo, gacantaada oo nadiifan aad ku dhaqdo, kadibna aad saxarada dhaqdo. haddii ay dhacdo in aad hormariso xubinta saxarada, waa in aad ku nadiifisaa saabuun loogu talagalay, kadib ayaad ku dhaqi kartaa kaadida. sababtoo ah infectionka ka yimaada saxarada, kaadida, xubinta taranka ma aqbali karto, wayna ku adag tahay inay aqbasho. qodobka 11 galmada dumarka ajnabiga ah ama galmada xaaraanta ah ama gogoldhaafka iyadana waxay keentaa infection. sababtoo ah dumarka galmada ajnabiga sameeyo ama ragga sameeyo waxaa ku badanayso in infectionka uu ku ziyaado, weliba infectionno aan la aqoonin inay kala qaadaan, infectionno aan hore loo arki jirin, dhibaatooyin fara badan. marka in la iska ilaaliyo galmada xadgudubka ah. lambar 12 qodobka 12 in nadaafadda guud ahaan lagu dadaalo. gacmaha la nadiifiyo, marooyinka la xirna la nadiifiyo, maxaa yeelay kastuumo wasakh hadaa xirato infectionkaaga dhammaan maayo, gorgorada wasakh hadaa xirato infectionkaa dhammaan maayo. haddii aad xirato dhar oo isheeg ku dhibaayo kugu dhagan, iyadana infectionkaa dhammaan maayo. iska nadiifiya saraawiisha iyo dharka aad xiranaysaan. sidoo kale nadaafadda meelaha xubnaha tarankana waa muhiim. iskana ilaali inaad isticmaasho daawooyinka lagu dhaqo oo loo yaqaano feminine wash. nooc walbay ahaadaan feminine washka oo gudaha hoos lagu dhaqo, iyadana waxay baabi'isaa bakteeriyada. waa digniintaas, waxay baabi'isaa bakteeriyada wanaagsan ee ku nool fajinaha ama xubin taranka dumarka ku nool, taasoo keeni karta marka in cawaaqib xun oo ah in waxa weeyaan fungal infection meesha yimaado, vaginosis iyo bacterial infection oo aad u dhib badan meesha uu dhaxlo. maxaa yeelay meesha waxaa ku nool bacteria oo meesha degan oona ka ilaaliso waxyaabaha pathogenka ama jirada ku keeni kara ka ilaaliyo. marka haddii aad iska waxa weeyaan ku dadaasho nadaafadda, wixii bacteria oo banaanka imaan lahayna waad ka hortagtay. laakiin haddaad isticmaasho daawooyinkan feminine wash loo yaqaano, ayada waxay baabi'isaa bakteeriyadii fiicnayd. hadhow kale bakteeriyadii jeermiska wasaqda oo pathogenic ahayd oo dhibka keenaysay ayaa ku imaanayso, dhibaatana kuu geysan karto. haddaba marka waa inaad ka taxadirtaa arrinkaasi, waa arrin aad muhiim u ah. 13 waa qodobka ah macnaha dadka ama haweenka uurka leh waxay u nugul yihiin infectionka. sidoo kale qodobka 14 waxaan ka dhigaynaa ugu dambeeyo dadka qabo sokorta, dhiigkarka, wadna xanuunka, waxaasoo dhan dadka qabo waxay u nugul yihiin, ama jirooyinka chronic dhan dadka qabo waxay u nugul yihiin infectionnada. sidaa darteed waa inay markaa ku dadaalaan in ay ka taxadiraan qodobada haddaan soo sheegnay si gaar ah. dadkaas si gaar waa inay u taxadiraan. dadka uurka leh waa haweenka uurka leh, maadaama difaaca jirkooda hoos u dhacayo. dadka oo qabo xanuunada gaarka sida dhiigkarka iyo sokorta iyo waxaas la mid ah, dadka ugu badan oo infectionka la daala dhacayo waaye. marka waxaa fiican in lagu dadaalo, lagana taxadiro waxyaabaha keeni karo in infectionka uu soo laabto. halahaas ayaan ku ekeynaynaa. halkan waa 14 qodob ayaan ku sheegnay. 14kaas qodob waxaan rajaynayaa in dhammaan aan ka faa'iideysan doono, kuna dadaali doono, qof walbana uu xooga saari doono in uu xaqiijiyo 14kaas qodob si uu isaga dheereeyo infectionnada soo laabto ragga iyo dumarka. waad mahadsantihiin. waxaan filayaa in aad in badan nala soo socoteen. haddaba nagu soo biir oo ka mid noqo dadka aan nagu xiran channelkeena. waxa weeyaan waxyaabaha kusoo gudbino la socdo. waadna mahadsan tahay. soo dhow.